marka ikhwaani walaalayaal salaadaan ku dadaalno salaadu waa meesha diinteena maaragtaan qofka diintiisa laga garto weeyaan yaanan qof muslima bilaa salaada xaafadaheena guryaheena yaanan lagu arkin waa ceeb bal waa nuqsaan bal waa khasaare inaad aqalka adigu aad ka soo kacday salaada subaxaad ka timiday inaad dadka kale aad kaga timaada iyaka oo hurda waa nuqsaan weeyaan labada qof ee isqabta buu nabigu sheegay waa uu duceeyey nabigu gabadhana uu duceeyey ninkana waa uu duceeyey ninka buu nabigu yidhi habeenkii kaca ee salaata leylka u kaca ee xaaskiisana kiciya hadday diidana biyo yar ku shaydhiya ilaahay ha u naxariista buu rasuulku yidhi haweeneyda muuminadda ee habeenkii salaata leylka u kacda ee ninkeedana kicisa haddii uu diidana biyo yar ku daadisa taana nabigu waa u duceeyey allah u naxariista buu nabigu yidhi waa naxariis والنبي علي يا فاطمة ودتك أقول جعلا أي نبي قلت الصامر هذاك ورجلي وميانة تكني ميانة تكني ألا تصليان بركو النبي وهذا الكاكولة يا علي يا فاطمة قد وح أقل كوغا باد عنتو أفضل لقريه ما تهلو واحد ساقا كو أفرتان ما هيستان أرن مايو بل وحا النبي أرن يا ما تكتين ميانة تكني علي فاطمة ويمد وابري مركو واقو بريء حسن الحسين هاوي يا رسول الله واقع نو بريء تري أنكو حاليت لنا بلا حرام أحباء معونين ساكن أقل وحلا كريم ما يلان مركا أوهن توديبو على إيقا قادو حقا بيره ولك عيكو تري وكذا بي بدي النبي صلى الله عليه وسلم حوارك علي بن أبي طالب ونن يهودي بيرتيسي عيلو لها مركي بلدي وصوصارو بيها وشبابا حبت تمرة مش غير لو حسابية للصيي وحوجها تمرة أنتو شغالي حسن الحسين هل كان أنتو جد وصفريسي تمرتي بيها يسكت عنيان عياريان مركب النبي يقول يمدو حسن الحسين والنبي ولا فريستو لا عياري مركب يا علي وبد كيف عناد أنت كل لان ما بيجي هيسدا ما أورن لابد هذه اللي أنت تسوق على تدوش قيسود سي تمر يبيو أيام إن أنت يدي فاضمان الجاجة كجت بدمية war gabadha ii fur Soomaaliya hadii ka waran ma bana haysid buu leeyahay ciyaalkaaga taqaana inanteedan ana dhalakeen ma oran nabigu sida labadeedan u wada ma dhacdeeda iga celisay buu intuu dhigu kulaan ya rasuulallah yaki wax yar baan u shaqeeyo way cunaane faaduma aan yar u shaqeeyo ii kaadi buu ku yiri markaasuu shaqeeyay nabiguna xasan buu qaaday xuseen buu qaaday calina xasan buu qaaday waxa la xuseen nabiga xag inta hoose uga ekaaba leeydi xasan nabiga inta sare uga ekaaba leeydi waa labada uu nabigu asxaabtiisa ummadiisa ugu jeclaa maalin khudbada jimcada nabigu soo khudbadeynayay labadooda orday masjidka soo galeen khudbada intuu joojiyay nabigu halkooda ugu tago soo xambaaray markaas oo saxaabadii nabigu ku yiri labada markaan arka ma joogi kara buu ku yiri ilaahu kee jeclaadana jeclow kee nacana ilaahu nacbu rasuulku yiri kuwaas bala cunto ku saxanaya ka warama إنك أنا قريه أن الراشم بكبو حصومة نعمة دي ما أنتين نقب بلطي أيضاً دب قاركود نعمة دي إلهي وقو كفرنا يا صومة فأولا عليهم بدك حافظ دي أن جولتك صوك عدين صلاة كولة دالة وقوبتك صلاة كو تربية داية عمر بن الخطاب بأورنجري والأولاد دينا تضبط سنوه الرئيس الله عيارة تضبط كو حكتنا بأورنجري البيئة والتعليمية وقعنت صوقبتا تضبط كو حكتنا إلمها مارتان الله صاحبة كوب يلا باتن كاسنا علمه تربية صحة هدو لبدي سوالد وكهله علمها سيلمتها بقى لبو نغنى يا نفتي سنة واحترى بدكي سيد دينتي سنة واحترى علمها سنة نغنى يا مركا ولا ليال زمن كنا رنتي والزمن أدق ويان زمن أدق ويان خاصة ذاتك دان يرى حل أدق بكسور دعين مانتا لكن بدبادة وحا الرجل إلهي مانتا الرجل قمنايو دادال دينات بينو سعودة صحوة إسلامية مانتا أدونك كسعودة علوم دي معلمين تي دعاة دي جماعات دي اجتماعية دي مؤتمرات كي محاضرات كي بيانات كي وعد كي ميل والبا مانتا ولا قولة دبا جوغا مركا فرصة دا إن شاء الله هكفا يدي سنة وكو دينتا إلهي برتا ودد على كل رقم الله ينقدقه إن شاء الله هذا فراخ مركات هشانا إلهي درتي أبحو جماعة ضد الراعة وددالك دينته علماء إيه مارتان دعاء كلي إنا كوبينه هذه أنا دينته حلبك حصارا
diintu ma diinta wadaadada unbaa mise waa diinteenii warbal sheegade soo teenii ma soo inaan aakhira ku badbaadno ma rabno ha dhahda de diinta markaa waa inaan wax gashano weeyaan caqligaaga cilmigaaga dhaqaalahaaga fikirkaaga muddo yaroo kooban bay asxaabtu diinta wax gashadeen ilaa qiyaamaha loo ducaynaya bal fiirso saxaabada rasuulka in yar Abu Hurayra dhowr sano ayuu nabiga la joogay dhowr sano ilaa qiyaamaha loo ducaynaya Sa'd ibn Mu'adh marka la yidhi nabiga 6 sano la joogay maalintuu dhintana carshiga raxmaanka u gariiray 70,000 oo malag baa aaskiisa ka soo qayb gashay buu nabigu yiri waa muddo yar waxay nabiga la joogeen laakiin muddada yar maxay isticmaalaan ma taqaanaa xoogoogii oo dhan bay diinta wada gashadeen Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu adduunka 20 sano ku dhawaad buu nabiga ag joogay ka soo qaad 20 sano kama badnayn ama dhowr iyo 20 sanadood dheef buu gashaday diinta ilaa qiyaamaha manaabirta adduunka oo dhan baa looga ducaynaya war wax lagu tabco diinta ugu khayr badan khayr diintu wayna ku raacdaa baa la yidhi wayna kaa hadhaa laakiin haddaad adduunyo u tacabto keliya tacabka adduunyada uu kaa hadhay laakiin aakhira waxba ku raaci mayso sida bahalkan la yidhahdo juclaan ma taqaanaan juclaan soomaalida waxaa tirahdaa xaarwalwaal maxaa u taqaanaa inagu dooshaan juclaan oo luqa carabiya soo mahayn bahalkaasi baa la yidhi saxaradu ka dhiga kubad uu kuusaa maantoo dhan uu soo riixi waxaan uu wato iyo godka uu ku wadaa sidee kaynba dooshaan saxaradii uu maantoo dhan uu kolba dhinac u soo walwaalayo xagga ula soo dhacayay godkiisii markuu la dul yimaado baa la yidhi godka afkiisa ayaa yar wuxuu watana intan uu leegyahay maantoo dhan buu haddana ku wareegi seed u gelisaa waa u geli waaye isagaa markaa u dambeysa godkuu gali bale kolkuu daalo godkiisu iska gali quraanjo waxaa imanaysa markaa isla socoto isku xidhiirsan wixii dhannaaba intay quraanjadu qaadato way kala furfurtaa baa la yidhi quraanjadu dana midba in yar afka ku qaadana way la socon dadka adduunyada uu ka fikira way dhisayaan way dhaqayaan way badinayaan way dhisayaan halkan building halkan daaro halkan Nairobi halkan Muqdisho dhis maalinta uu dhintana keligii intoo la qaado qabriga la gelin xoolihii intaa leegu dhisay ayaa qaadanaya ma taqaana quraanjo ciyaal hadday saalixiin noqdaan buu rajo leeyahay u duceeyaan oo waqfina u bixiyaan wax qaarkood maxkamadaha isku haystaan maxkamada anaga Djibouti dadkii wadankaa dhistay malaha qof iyo laba ka nool wixii kale oo dhan intay wada dhinteen ayaa ubadkoogii maxkamada isla taagan yihiin kala bixilayeen sabiila oo dhaadhacay marka haddaan adduun ku tacabno adduunku uu ka hariyo dad kale uma qaadan laakiin diinta haddaad tacab gelisid wayna ku raaci wayna ka hari diintu asxaabta rasuulku diintu wayna raacday oo aakhirana waxaan rajaynaynaa ilaahay inaygiisa yaqiinsanahay ee qur-aanku uu sheegay inay janno wada galeen wayna ka hadhayo waanaka diinta manaaficsanayna ilaa qiyaamaha marka insha Allah dhahada inakuna inaan diinta markii firaaqan haysano maalkeena waqtigeena aan gelino soo diyaar ma nihin insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo amniga Allah inoo ziyaadiyo iimaanka Allah inoo adkeeyo dad badan oo walaalaheena xanuunsan baa jiree oo duca dalbanaya qof walba halku ka bukana caafimaad sariic Allah siiyo qaar muraaday leeyna muraadkooda macsilahna gacanta midig Allah ka siiyo qaar way bukaana ilaahay caafimaad ha siiyo qaar waa guurdoona gabdho wanaagsan iyo wiilal wanaagsan Allah ha siiyo qaar waa ubadoon wayna durriyad wanaagsan Allah ha siiyo dalkeena aan ka soo jeedana nabadiisa Allah inoo adkeeyo wixii diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena u danana talada Allah inoogu dhiibo wixii khayr inoo lahayna Allah ina dhaafiyo muslimiinta wixii khayr aanu lahayn Allah dhaafiyo wixii diinta iyo dadka iyo dalka u danana Allah inoo soo dedejiyo dhibaatadana Allah inaga qaado faqriga Allah inaga saaro ciriiriga Allah inaga saaro cabsidana Allah inaga saaro xanuunada la sheegayana Allah inaga ilaaliyo dadku hayana Allah ka qaado dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo sallallahu ala nabiyina Muhammad